jilaac caanka ah dalka India lana yiraahdo Kader Khan ayaa xalay waxa aan raahday habeen saddexaad uu ku geeriyooday magaalada Toronto ee dalka Canada. haddaba geeridiisa Kader Khan oo ka mid ah jilaayaasha muslimiinta ee dalka India sida weyn caanka uga ah ayaa waxa ay timid markii bilooyinkan dambe uu ku xanuunsanaa isbitaal ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada. wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan waxa uu ku eegaya jilaagan oo aflaanta Hindida oo dhalinyarada Soomaalida qaarkood ay aad ugu taxnaayeen qaar badan oo kamid ah kasoo muuqday iyo geeridiisa. jilaaga caanka ah ee aflaanta Hindiya Kader Khan oo haystay dhalashada dalkan Canada ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Toronto isagoo 81 sano jira ku dhawaad 16 toddobaad oo xanuunsanaa kadib. Kader Khan ayaa 1937 ku dhashay magaalada Kabul ee dalka Afghanistan isagoo aad u yar ayay reerkiisa u soo guureen magaalada Mumbai ee dalka Hindiya. jilaagan ayaa ka soo muuqday ilaa 300 oo filimkiisii ugu horeeyay ee Dag wuxuu jilay sanadkii 1973 waxaana atooriya Trisha ka ahaa Rajesh Khanna iyo Sharmila Tagore. Gurjeet Kaur waxay u dhalatay dalka Hindiya haddase waxay arday ka tahay magaalada Toronto. waxay cabiraysaa dareenkeeda ku aadan dhimashada Kader Khan. Kader Khan was a great actor. He usually played comedian roles and he worked in more than 300 movies. We'll miss him a lot. Kader Khan waxa uu ahaa jilaa aad u wanaagsan. Inta badan waxa uu ka ciyaari jiray kaalinta qosolka. in ka badan 300 oo filim ayuu ka soo muuqday. in badan ayaan u xiisi doonaa. dhammaan jilaayaasha Bollywood-kana way u xiisi doonaan. waxa uu dhiirigeliye u ahaa jilaayaasha ku cusub xirfadda jilista. waan u xiisi doonaa. All the Bollywood will miss him because he's a great inspiration to the new actor and actresses in the industry. So, yeah, we'll miss him. Soomaalida ayaa aad u daawata filimaanta Hindida waliba waxay jilayaasha u baxsadeen magacyo u gooni ah oo ay ka mid yihiin Cali Dheere, Lacagay Lacag, Saalimasay, Indabaliil, Atooraha Shabeelka iyo kuwa kale oo badan. haddaba maxay ku xasuustaan Kader Khan? waa kan Nuurdiin Maxamed. jilaaga caanka ah Kader Khan wuxuu ka mid yahay jilayaasha caanka ah oo oo aad loogu xiiseeyo wadanka Soomaaliya. Khaasatan asaga wuxuu jili jiray aabanimo, wuxuu aabnoon jiray atrishada iyo aktoora filimka la jilaayo, wuxuu jili jiray qareenimo, wuxuu kale aad u jili jiray qosolka dhanka qosolka aad u qosolin jiray. waxa kale aad loogu xasuustaa wadanka Soomaaliya filimka caanka ah Camoole iyo iyo Dhogol oo la jili jiray jilaaga caanka ah Lacagay Lacag. marka waxa way waa nin oo aad u qosol badan. waxa kale dan filimkiisa oo uga xiisan jiray waa nin oo aad u qosol badan, waa comedian waa qosol badan yahay. Kader Khan wuxuu filimaan la jilay jilayaal caan ah oo ka tirsan Bollywood-ka Hindiya oo ay ka mid yihiin Amitabh Bachchan oo Soomaalidu ay u taqaano Cali Dheere, Govinda, Akshay Kumar oo isna Soomaalidu ay u taqaano Mr. Bon, Sunil Shetty oo Soomaalidu ay u taqaano Balwan, J.K. Sharif, Mithun Chakraborty iyo kuwa kale oo badan. filimka ugu qosolka badan ee lagu magacaabo Hamhain Kamalke waxa uu la keenay Kader Khan jilaaga lagu magacaabo Anubam Khair oo Soomaalida ay u taqaano Lacagay Lacag. filimkaas oo ay ku jilayaan Indhoole iyo Dhagoole. Ra'iisul Wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay in Kader Khan uu ahaa qoraa filimaanta oo xasuus badan ka tagay isla markaana jilaa xirfadiisu ay iftiimisay shaashadaha. jilayaal kale oo ay ka mid yihiin Amitabh Bachchan ayaa ka tacsiyeeyay geerida Kader Khan. wiilka Kader Khan oo lagu magacaabo Sarfaraz Khan ayaa warbaahinta BTI u sheegay in aabihiis lagu aasi doono dalkan Canada.